assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii nuxurka buugaagta oo aynu kaga hadalno nuxurka iyo qodobada ugu muhiimsan ee buugaagta. maanta waxaynu ku soo qaadan doonnaa buug la yidhaahdo sidee u kasban lahayd saaxiibbo una noqon lahayd mid saamayn ku leh dadka. waxaana qoray qoraan maraykan ah oo la yidhaahdo Dale Carnegie. inaad taqaanno sida xidhiidh wanaagsan loola yeesho dadka waa mid ka mid a sifooyinka ugu muhiimsan ee ay tahay inuu yeesho qofku si uu ugu guulaysto nolosha. qoraagu buuggiisa wuxuu ku soo bandhigay 4 qaybood oo kaa caawinaya inaad xidhiidh wanaagsan oo guulaysta aad la yeelato dadka. 1. qaacidooyinka iyo habka aad ula dhaqmi lahayd dadka kale. 2. 6 hab oo kaa dhigaya qof dadka oo dhammi ay jecel yihiin. 3. sida ugu wanaagsan ee aad ugu guulaysan lahayd inaad fikirkaaga ka dhaadhiciso dadka. 4. noqo hoggaamiye. qaybta 1. qaacidooyinka iyo habka aad ula dhaqmi lahayd dadka kale. qoraagu qaybtan wuxuu ku soo bandhigay 3 qaacido. qaacida 1. weligaa cidnaha dhalleecayn. waxaa had iyo jeer inoo caado ah inaynu dadka kala dhalleecayno cambaarayno ficiladooda innagoo aan xaq u lahayn, sidoo kalena aan garanayn sababta dhabta ah ee qofku u sameeyey sidaa. laga yaabaa haddii aynu booskooda ku jiri lahayn inaynu sidooda oo kale u dhaqmi lahayn. had iyo jeer isku day inaad caadadan xun iska ilaalisid, waxayna wax badan kaa caawin doontaa xidhiidhka wanaagsan ee kaala dhexeeya dadka. qaacidada 2. ogow oo garo waxyaabaha ay jecel yihiin dadka kale. dadka oo dhammi waxay leeyihiin rajooyin iyo himilooyin iyo waxyaalaha ay jecel yihiin. haddii aad had iyo jeer qofka kala sheekaysato waxyaabaha uu jecel yahay iyo waxyaabaha ku dhiirigeliyaba, wuxuu had iyo jeer ku raaxaysanayaa la sheekaysigaaga iyo wakhti la qaadadkaaga. qaacidada 3. ku caawi dadka inay helaan waxyaabaha ay doonayaan. waxyaabaha ugu badan ee ay jecel yihiin dadku inay helaan waa qadarinta iyo in loola dhaqmo sidii inay yihiin qof muhiim ah. dareensii qofka inuu yahay mid muhiim ah, qadarina aad u hayso. taa beddelkeeda waxaad helaysaa inuu ku ixtiraamo, xidhiidh wanaagsanna uu idinka dhexeeyo. qaybta 2. qaybta 2 qoraagu wuxuu ku soo bandhigayaa 6 hab oo kaa dhigaya qof dadka oo dhammi ay jecel yihiin. qodobka 1. sii xiise iyo ihtimaam dadka kale. dhammaanteen waxaynu jecel lahay in dadka kale ayna xiiseeyaan, ihtimaamnayna siiyaan. haddaba si aynu taa u gaadhno waa inaynu dadka kale u muujinnaa xiise iyo qadarin run ah, markaas ayaynu noqonaynaa kuwo dadku xiiseeyaan dhinac walba. qodobka 2. ku qaabil dadka weji furnaan. had iyo jeer kula kulan oo ku soo dhoweeya dadka dhoolacaddayn qurux badan. waxay dhoolacaddayntaasi ka tarjumaysaa inaad qofka u haysid wanaag iyo kalgacal, iyo inaad doonaysid inaad la yeelato xidhiidh wanaagsan. qodobka 3. xasuuso magacyada. dadka badankoodu waxay jecel yihiin inay magacyadooda ka maqlaan dadka kale. markaad qof la kulanto marka ugu horraysa, weydii magaciisa. isku day inaad xasuusato iyo inaad ugu yeedho mar kasta oo aad la kulanto, adigoo iska ilaalinaya naanaysaha. taasi waxay dareensiisaa dadka ahmiyad. tusaale ahaan, haddii qof aad dhowaan isbarateen magacaaga ilaawo ama mar labaad ku weydiiyo, waxaad dareemaysaa inaanu ahmiyad siinin uu ku xasuusto magacaaga. sidaa daraaddeed waa muhiim inaad xasuusato magacyada dadka kale. qodobka 4. noqo dhegaysto fiican, kuna dhiirigeli dadka inay ka sheekeeyaan naftooda. waxa aad muhiim u ah inaad si fiican u dhegaysato dadka kula hadlaya, adigoo aan kaga mashquulayn waxyaabo ama cid kale. dhegaysigu waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee la siiyo qofka, maxaa yeelay qofka marka la dhegaysto waxa uu sheegayo waxa uu dareemaa ahmiyad fara badan. sidaa daraaddeed adeegso habkan si aad xidhiidh fiican ula yeelatid dadka. qodobka 5. isku day inaad kala hadashid dadka waxyaalaha ay ahmiyadda siiyaan. wuxuu qoraagu leeyahay furaha lagu gaadho qalbiyada dadka waa inaad had iyo jeer kala sheekaysato waxyaalaha ay had iyo jeer ahmiyadda siiyaan amaba ay jecel yihiin inay ka sheekeeyaan mar walba. qodobka 6. dareensii dadka ahmiyadda ay kuu leeyihiin. haddii aad ku guulaysato inaad qofka dareensiiso ahmiyadda uu kuu leeyahay, waxaad sidoo kale ku guulaysanaysaa kalgacalkiisa iyo saaxiibtinimadiisa. sidaa daraaddeed isku day inaad qof kasta oo noloshaada muhiim ku ah u dareensiiso ahmiyaddiisa qaab ku habboon shakhsiyaddiisa, maxaa yeelay qof kastaaba wuxuu leeyahay dabci iyo shakhsiyad u gaara. qaybta 3. qoraagu qaybtan wuxuu ku soo bandhigayaa sida ugu wanaagsan ee aad ugu guulaysan lahayd inaad fikirkaaga ku qanciso dadka kale. qaybtani waxay ka kooban tahay 12 qodob, balse waxaynu ka soo qaadan doonnaa 6 qodob ee ugu muhiimsan. qodobka 1. habka keliya ee aad ugu guulaysan karto muran ama khilaaf waa inaad gebi ahaanba iska indhatirtaa. isku day inaad ka fogaato muranka ama khilaafka, maxaa yeelay wuxuu dadka dhex dhigaa xumaan iyo cadhi joogto ah. weligaana ogsoonow, mar kasta oo aad muran gasho waxaa tahay kii mar walba guuldarraysta. maxaa yeelay haddii aanad muranka ku guuldarraysan, waxa aad waayaysaa jacaylkii iyo xidhiidhkii wanaagsanaa ee kaala dhexeeyey qofka aad la murmaysid. sidaa darteed isku day inaad mar walba ka dheeraatid muranka. qodobka 2. ixtiraam fikirrada iyo aaraa'da dadka kale. ha u adeegsan inaad u muujiso duwanaanta fikirkaaga qaab aan habboonayn ama erayo aan wanaagsanayn. mar kasta oo aad ciddood la wadaagaysana, ujeeddadaadu ha noqoto fikir isweydaarsi ee marna ujeedkaaga ha ka dhigan
inaad beddesho fikirka qofka kale markaa waxaad qofka kale ku khasbaysaa inuu sidoo kale ixtiraamo fikirkaaga. qodobka 3aad qiro qaladkaaga marka aad qaldanto. mar kasta oo aad qalad gasho isku day inaad markiiba si geesinimo leh u qirato. waxay arrintani muujinaysaa isdhuldhig iyo tawaaduc iyo inaad kalsooni ku qabto naftaada. waxay sidoo kale kaa caawinaysaa in dadku si degdega kuu cafiyaan welibana ku garab istaagaan. qodobka 4aad ahow weligaa mid debacsan. ku bilow hadalkaaga kelmado saaxiibtinimo oo wanaagsan. xataa haddii aad ka cadhaysan tahay qofka adeegso hab iyo erayo debacsan si aad u dejiso xaaladda. laga yaabaa inaadan kasban kalgacalka qofka balse waxaad dejinaysaa dareenka xun ee uu kuu hayo qofku. waxaad sidoo kale ku guulaysanaysaa in qofku fikirkaaga u eego si caafimaad qabta amaba uu kula qaato. qodobka 5aad ku bilow dooddaada qodobada laysku waafaqsan yahay. marka aad la doodayso qof kaaga duwan ra'yiga isku day inaad dooddiinna ku bilowdo qodobada laysku waafaqsan yahay. wuxuu arrinkani fududaynayaa inaad isku soo dhowaataan qodobada qaarna isku waafaqdaan. balse haddaad dooddiinna ku bilowdo qodobada laysku khilaafsan yahay waxa aad u adkaanaysa suurtagalnimada inaad isku soo dhowaataan ama isku waafaqi kartaan. qodobka 6aad si daacada uga eeg dhacdooyinka dhinaca ay ka taagan yihiin dadka kale. ka hor inta aanad si degdega u xukumin ama u qiimayn habdhaqannada dadka kale isku day inaad booskooda isdhigto oo aad dhinacooda wax ka eegto. waxaad ogaan doontaa sababta ku kaliftay inuu sidan u dhaqmo qofku waxaanad fahmi doontaa inay suurtagal tahay inaad sidiisa u dhaqmi lahayd haddii aad booskiisa ku jiri lahayd. qaybta 4aad ee ugu dambaysa noqo hoggaamiye. haddii aad tahay maamule guddoomiye urur ama wixii la mid ah waxaa muhiima inaad yeelato sumadaha ay leeyihiin hoggaamiyeyaashu. wuxuu qoraagu buuggiisa ku soo bandhigayaa 9 qodob oo kaa dhigayo hoggaamiye dadka ku dhiirigeliya isbeddel. 1 markaad qof qaladkiisa u sheegayso ku bilow ammaan iyo qadarin daacad ah. 2 marka uu qof khalad galo u dareensii khaladkiisa si aan toos ahayn. 3 qiro khaladkaaga ka hor inta aanad dadka kale u sheegin khaladkooda. 4 halkii aad qofka siin lahayd amar toosa isku day inaad su'aal ahaan ugu soo bandhigto sida maxay kula tahay sidani. 5 qofna ha gelin mowqif uu isku xishoodo dadka hortiisa. 6 dhiirigeli shaqaalahaaga adigoo ku ammaanaya horumarkooda iyo waxqabadkooda. 7 sii shaqaalahaaga sumcad wanaagsan. 8 sii dhiirigelin qaladkana uga dhig mid ay fududdahay in la saxo. 9 ugu bandhig shaqada qaab ay ku qanacsan yihiin waxay qaban doonaan iyagoo faraxsan.